structure qaabka aan u samayn lahayn marka sameynayso waxa u baahan tahay marka hore statementigu muxuu noqonayaa marka statement jumladan isqabtaa waxa la yiraahdaa statement you are بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين and welcome back to our YouTube with another grade 8 English questions and answers book and our today's lesson starts from activity 6 question tags, the page number 3 of the book, activity 6 question tags. So before we go through the activity, first we need to know about question tags and then we will come back to our activity. So what is a question tag? Let's see these two sentences first. You are a student, aren't you? Or he is not happy, is he? So these questions at the end are called question tags. Aren't you or is he? These kind of questions, these short questions at the end are called question tags. So what are question tags? Question tags are small or short questions at the end of a sentence. And why do we use them? What is the purpose of using them? To check or confirm information. So tell aan u isticmaalna waxay tahay in aan u xaqiijino ama check gareyno information. Aan isla fiirino bal jumladan marka hore. You are a student, aren't you? Waxaad tahay arday oo miyaadan ahayn. And the other one waxay leedahay iyaduna he is not happy, is he? Isagu ma faraxsano oo miyuu faraxsan yahay. Jumladaha dhammaadkooda markay dhammaadkooda marayaan su'aalaha yare gadaal ka raaco oo aren't you iyo is he oo kala la mid ah ayaa waxaa loo yaqaanaa question tags. Question tag waxaan dhahnay waa su'aalo yar oo oo raaco ama yimaado dhammaadka jumladda. Sababtee u sameynayna marka question tag why aan ugu baahannahay. Waxaan ugu baahannahay to check or confirm information. So let's imagine you have seen this little boy in the street. Anugaan yar inaad ku aragtay muxuu ahaayey wadada ama kaaga hor yimid oo kale kasoo qaad. You can see he has a school backpack and also a uniform. So instead of asking, are you a student? You might say, you are a student, aren't you? Hadda anugaan oo kale aan kasoo qaadna inaad ku aragtay wadadoo kale sida aragtid waxaa uniform iyo boorsada ciyaalka isku buugaagtii waxay u qaataan wata. So meesha weydii lahayd arday miyaad tahay? You can say, you are a student, arday ayaa tahay. Aren't you oo miyaadan ahayn. Meeshaan anagu ka dhihi lahayn oo kale hadda Soomaali ahaan arday ayaa tahay sax. Meeshaan dhihi lahayn iyagu waxay dhahayaan you are a student, aren't you? So, why marka aren't you uu isticmaalaa? Maadaama uu yiri arday ayaa tahay wuxuu isticmaalayaa uniform canugan iska wadan karaa hadduu doono. Who knows? Cidna ma ogo sax. Halashaan ma hubo. Si u xaqiijiyo marka wuxuu isticmaalayaa aren't you oo miyaadan ahayn. He is not happy, isagu ma faraxsano. Is he? Maybe inaad aragtay qof xaggaa kala fadhiyo xoogaa khushuucsan and then you might ask qof kula fadhiyo kale waxaa weydiinaysaa oo kale maybe he is not happy, is he? Isagu ma faraxsano oo miyuu faraxsan yahay. So those kind of questions are called question tags. Waxay la tahay inaad fahamteen. And let's see the structure of question tags or the formula. Structure macnihiisu wuxuu yahay formula ama qaacidada ayaa loo yaqaanaa structure. Qaabka aan u samayn lahayn marka sameynayso waxa u baahan tahay marka hore statementigu muxuu noqonayaa marka statement jumladan isqabtaa waxaa la yiraahdaa statement you are student ama he is not happy waa statementiga waa kaasaha plus auxiliary or helping verb oo la raaciyo auxiliary verb ama helping verb. Auxiliary verb wuxuu noqonayaa are or is oo kale way badan yihiin auxiliary verbsku. Marka waxaan dhahnay statement oo la raaciyo auxiliary verb ficil caawiye and then la raaciyo pronoun waa kanaha you iyo he oo kale ayaa waxay noqonayaan pronoun and then question mark at the end oo kadibna gadaal ay ka raacday question mark. Qaacidadii ama structurekiisu waa qaabka marka xaggan marka you have to know positive statement makes negative tag and the negative statement makes positive tag. Aan ula jeedno jumladda statementigu haddii uu yahay positive like this one waxaa ka dhalanayo negative taggu ama question tagga ka dhalanayo wuxuu noqonayaa negative oo negative diidma ayuu noqonayaa sida xaggan ka arki kartid aren't you, are iyo not oo la isku daray waa aren't you. Haddii xaggan ay negative noqoto statementiguna
question tagga ka dhalanayo ama tagga ka dhalanayo wuxuu noqonayaa positive sida jumladan oo kale. He is not happy. Is he? Ujeeda question tag waa positive. Marka mar waliba xasuusnow waxaa xasuusnaata positive statement makes negative tag. Statementiga hadduu positive noqdo tag waa inuu negative noqdaa. Hadduu statementiga negative noqdana tag waa inuu noqdaa maxay? Positive. Let's see this example. She is tired. Xaggan waa positive statement. So the tag becomes isn't she, which is negative. She is tired, isn't she? And they are not here, are they? Iyadu way daalan tahay oo miyaanay daalanayn. Tan marka statementiga positive noqday, so question tag wuxuu noqonayaa negative. Tanna waa cagsigii. Waxaa negative noqday statementigii, question taggaasna wuxuu noqonayaa marka positive. They aren't here. Xaggan ma joogaan. Are they? Iyagu miyay joogaan? Xusuusnow marka mar waliba waa in negative laga helo hadduu question tag meesha soo galaya. Ama waa inay statementiga raacdaa negativeku, ama waa inay question tagga ay raacdaa negativeku mar walibaba. So let's get back to our book and go through the activities. Activities 6 question tags. So the first one is he is late today. So the question tag becomes isn't he? As you can see, the statement is in the positive. So the question tag should be in the negative. He is late today. So maanta wuu soo dahay. Isn't he? Oo miishu soo dahan ay noqonaysaa marka. We know what we do, don't we? Waxaan sameynayna waa naqanaa oo miyaanan ogeyn. Anytime the statement is positive, the question tag is negative. And if the statement is negative, then the question tag should be in the positive. You want to see him today, don't you? Waxaad rabtaa maanta inaad aragtid, don't you? Oo miyaadan rabin. And number 4, my dress looks like yours. Dharkaygu wuxuu egyahay kaaga, doesn't it? Oo miyaanay u ekayn. Idaanu marka waxay u taagan tahay dress, dharka ayay u taagan tahay. You have done your duty. Waajibkaaga waad qabatay ama waad gudatay. Haven't you? Miyaadan qaban. He is not a trustworthy boy. Ma ahan wiil la aamino karo ama u qalmin la aamino. Is he? Oo miyuu yahay? They have no interest in this. Iyagu wax interest ah ama dan ah kama lahan arrinkan. Do they? Oo miyay ka leeyihiin? I did not take your pen. Qalinkaaga ma aan qaadan. Did I? Oo miyaan qaatay? The mother will come tomorrow. Hooyadu waxay imaan doontaa berri. Won't she? Miyaanay imaan doonin. So I shall not arrive on time. Shall I? Waqti kuma imaan doono. On time waxaa la yidhaha qofka markuu waqtiga loogu talagalay ku yimaado. Shall I? Oo miyaan waqtiga ku imaan doonaa. He will give me money. Lacag ayuu sii doonaa. Won't he? Oo miyaanu sii doonin. Ahmed will tell her a story. Wuxuu u sheegi doonaa ama u sheekay doonaa sheeko. Won't he? Oo miyuuna u sheekay doonin. She is opening the door. Iyadu waxay furaysaa albaabka. Isn't she? Oo miyaanay furayn. Hassan is happy. Hassan wuu faraxsan yahay. Isn't he? Miyaanu faraxsanayn. And activity 7 is about sports words in the puzzle. And buugga ayay ku jirtaa waa puzzle ama ereyo meel iskula daadsan, and then waxaa ka soo saaraysaa ereyada sportska ku saabsan oo ku jira muxuu ahaayey puzzleka ama meesha goobaabinta ah ee buugga dhexdiisa. Ereyada ku jira marka waxaa ka mid ahaa jumping oo ah boodid, cycling oo ah baaskiil oo kale markii la wado cycling ayaa leedahay. Sport one kind of sports aragteen baaskiilka tartamo ayaa lagu galaa. Diving oo ah quusitaanka, climbing oo ah fuulidda marka buur ama meel la fuulaayo. Team oo ah koox, boxing oo ah feerka, throwing oo ah tuuritaan whatever marka la tuuraayo, match oo ah kulan, basketball oo ah maxaa la dhahay kubadda kolayga ama basketka, and catching oo ah qabashada. And activity 8 waa helping verbs oo mararka qaarna lagu magacaabo auxiliary verbs. Waxaa ugu horeeyo waxaa nagala rabay marka meeshaan oo kale inaan ku buuxino auxiliary verbs ama helping verbs. Helping verbs aan ku buuxinay waxaa ka mid ah am iyo had iyo are iyo am iyo were iyo are. Kuwa boldiga farta boldiga ku qoran oo dhan waa helping verbs. I am opening the gate of the house. Waxaan furayaa maxay? Albaabka guriga. He had spoken to the teacher. He had spoken to the teacher. Mar hore ayuu la hadlay macalinka. By the time I met him, marka aan la kulmayay. The sheep are running into the field. Waxay galayaan kusii ordayaan beerta ama fieldiga. As you can see, sidaad arki kartid, I'm reading the Holy Quran. Waxaan akhrinayaa Quraanka. Dhammaantood marka
علشان meesha waxaana looga baahnaa inaan ku buuxino midka ku habboon the most suitable helping verb ka ugu habboon tusaale kale tan hadda ka soo qaadano as you can see sidaad u jeedid عشان taa waxay sheegaysaa haddaad hortaada ka muuqdaan which means oo hadda wax dhacayo I am reading the Holy Quran or present continuous tense marka sidaas oo kale ayaa loo buuxinaya dhammaantood we were doing the exercise and sameynaynay ama exercise-ka ayaan ka shaqaynaynay naga kartaa when the bell rang markuu gambaleelku yeeray they are swimming in the swimming pool iyagu waxay ku dabaalanayaan swimming poolka not in the river kuma dabaalanayaan webiga the man ninku is trying wuxuu isku dayayaa to save inuu badbaadiyo the life of a drowning boy wiilka hafanaya ama wuxuu ahay biyo cabid sida gobolada qaar loo yaqaan gobolada qaar waxaa loo yaqaan hafanaya qofku markay biyo ku qarqoomo ee biyo cabayo biyaha ka kor maraan ama biyo sitaan the man ninku is trying wuxuu isku dayayaa waa soo sheegnay our team has not yet arrived weli ma aanay imaan and number 9 is this is a cheap and a nice pen kani waa qalin raqiis misana haddana wanaagsan oo raqiis ah he has become pale and weak wuxuu noqday mid pale ah pale waxaa la yidhaha qof markay xanuun dartii wejigiisu isla bedelo qofku markuu xanuunsan wejigiisa waa laga garan karaa sax so he has become pale halshaan wejigiisa dhan waxaa fuulayo boorboor ama siba u ekaanaya and weak iyo mid tabar daran oo daciif ah has he done anything wrong wax qalada miyuu sameeyey it's a short and a fat ram waa wan gaaban oo haddana buuran ama cayilan buuran le dadka loo isticmaalaha gold is a valuable and precious metal dahabku waa shay qaali ah valuable qaali ah haddana precious ah labaduba qaali ay Soomaaliyan ku noqonayaan and activity 9 change questions into statements waxaa naga rabaa questions kan xaggan noogu qoran inaan u bedelno statements xaggan ayaan ugu bedelnay sida ka muuqataba so markaa samaynaysa inaad question u bedesho statement markaa rabtid you just swap waxaad ku samaynaysaa un inaad isdhaafisid isweydaarisid labada jumladda aad isweydaarisid muxuu ahaye qaybta ugu horeydo inta badanna verbka iyo muxuu ahaye ama auxiliary verbka iyo inay isweydaarisid subjectiga marka laga reebo jumlada dhidhifa sida simple past oo kale hadii jumladu tahay simple past question waxaa looga dhigaa did oo kale so marka laga dhigayo statementiga loo celinayo did maba imaan kartaba sababtoo ah waxaa imaanayo verbku waa in lagu qoro in the past so laba pastna meesha islama geli karaan simple presentiga isagana waa lamid do iyo das ku shaqeeya haddii loo celinayo statement oo hadal caadi laga dhigayo ma soo geli karto iyadana do iyo das labadaa marka laga reebo marka inta kale waxaa ku samaynaysaa un keliya isweydaari subjectiga iyo auxiliary verbka ama helping verbka aan aragno did he return my book miyuu soo celiyey waxaa loo bedelay he returned my book buugayga ayuu soo celiyey tana waxaa loo bedelay there ripe mangoes in these boxes waxay noqonaysaa there are xaggan oo kale fiiri waa la isweydaari are there waxay noqotay there are isdhaafin waa la isdhaafiyey keliya there are ripe mangoes in these boxes ay noqotay waxaa ku jira muxuu ahaye cambe bisil ayaa ku jira sanduuqyadan ayay noqonaysaa marka tana waxaa loo bedelay they went with their brothers ayay raaceen waxay la tegeen amay raaceen walaalahood did they go ay ahayd xaggan didta meesha waa laga saaraa sababta waxaa laga rabaa in baste laga dhigo go bastigeeda wuxuu yahay marka went they went with their brothers ay raaceen tana waxay noqotay we have paid them for the tickets anaga ayaa ka dhiibnay ticketka these are sharp scissors tani waa maqas af badan the child eats banana ayuu cunayaa I shall return your book soon dhaqso ayaan soo celi doonaa buuggaaga he could carry this box with easy fudud ayuu qaadi karay you can bring a basket from that place basket ayaa kasoo qaadan kartaa ama dambiil ayaa kasoo qaadan kartaa xaggaa the thief crept into the house ayuu kusoo gurguurtay without making any noise isagoon wax shanqara samaynin it's late for school today schoolka waa laga daaha maanta you have done your duty waajibkaaga waad gudatay you respect your parents waalidkaaga waad xushmaydaa he has done something wrong wax qaldan ayuu sameeyey and activity 10 is about using dictionary anagoo isticmaalayno adigoo isticmaalaya dhehe write the definition qor ayaa la dhahay qeexitaanada of the following words eryadan soo socdo ereyga koobaad waa obligation maxaa lagu qeexay waa something you must do for legal or moral lessons obligation waa waajib
wuxuu leeyahay marka waa wax ay tahay inaad u sameydid for legal sharciga aawadiis or ama moral lesson عشان wax way qasab inaad samaysid ayaa loola jeedaa to have someone or something from a danger to save dhehe in laga badbaadiyo someone or something qof ama shay in laga badbaadiyo from a dangerous or harmful situation xaalad halis ah ayaa waxaa loo yaqaanaa rescue waa badbaadin marka in qof ama shay laga badbaadiyo xaalad halis ah supermarket wuxuu yahay waa taqaanaa supermarket a large store waa maqaasiin weyn ama ballaaran that sells food iibiyo raashin and other goods iyo badeecooyin kaloo used in the home laga isticmaalo and funeral oo ah tacsida duugta la qabto ama duugta dadka loo dhigo wuxuu yahay waa ceremony waa ayuu leeyahay xaflad oo held for loo qabto dead person qofka dhintay usually before burial intaan la aasin or cremationkan waa gubitaanka hindidoo kale way gubaan marka waxaa loola jeedaa alashaan duugista qofka markii la duugayo un ayuu noqonayaa funeral modern waa casri ah wuxuu ku fasira marka relating to the present la xiriiro present time waqtiga la joogo or recent times wuxuu kaloo lagu fasiri karaa not the past waxaanan ahayn past waxa lasoo dhaafa aanan ahayn new and up to date waxaa kaloo dhihi karaa cusub oo up to date ah oo update ah alashaan meeshii update ku sugan erga lixaad waa paradise oo janno ah sida lagu fasiro wila marka perfect place waa goob perfect ah oo dhammaystiran or state ama xaalad of happiness ee farxadeed often badanana thought of as heaven marka qaarna loo sheego sida heaven jannadana way dhahan cirkana sidoo kale waxay yaqaanaan heaven so life safer oo ah badbaadiyo nololeed waxa uu leeyahay a person qof or thing ama shay that saves someone from serious difficult xaalad adag or danger ama halis ka badbaadiyo a disaster waa musiibo waxay noqonaysaa marka a sudden event dhacdo lama filaan ah such as sida an accident shil or natural catastrophe musiibo dabiici ah that causes taasoo sababto great damage or loss of life taasoo sababto maxay dhibaato weyn waxyeelo weyn ama nolol la waayo qof noloshiisa inay ku lunto kale criminal waa dembiile waa person who has committed a crime qof dembi ku kacay steamer waa a ship waa markab steamerku waa markab or a boat ama doon powered by uu ku shaqeeyo markaa steam qaacan waxyaabaha dhuxusha iyo waxyaaba la shidaa energygiisa uu saas yahay energygu uu ku shaqeeyo meesha shidaal ka qaataankaas wuxuu qaataa steamka ayuu ku shaqeeyaa also sidoo kale wuxuu noqon karaa a container oo used for cooking loo isticmaalo container waa weyl loo isticmaalo wax karinta cooking food raashin karinta with steam iyadoo la isticmaalayo markaa steamka qaaca ama waxyaabahan lagu shido waxyaabaha pirates waa burcabadeeda waxaan u naqaano wuxuu leeyahay waa people dadka who attack weeraro and rob dhacaha ships at sea dadka ku dhaco maraakiibta badda markii la joogo merchant waa person waa ganacsi ayuu ku saabsan yahay a person qof or a company ama shirkad involved in ku lug leh buying and selling iibinta goods badeeco special gaar ahaan in large quantities alashaan si jumlo ah quantities wax xaddi fara badan ah compensate waxay noqonaysaa to give someone something in qof wax la siiyo usually gaar ahaana money lacag in la siiyo waayaa loo siinaa marka to make up for loss si loogu gudo wax khasaaro ku dhacay qofkaas oo damage ama halis dhibaato loo geystay waa waxaan u naqaano magta ama magdhowda compensate marka waa magdhow ay noqonaysaa horror waa cabsi waxay noqonaysaa marka an intense feeling dareen weyn ama dareen saa'id ah oo fear oo cabsi ah shock argagax ah oo disgust ama nacayb ah earthquake waa dhulgariirka waxaan u naqaano wuxuu leeyahay marka waa sudden and violent shaking ruxmasho sudden lama filaan ah oo violent haddana dhibaato wadato of the ground oo dhulka uu ruxmo marka sometimes marka qaarna causing sababta great destruction burbur waaweyn as a result of movements taasoo ka dhalanaysa marka dhaqdhaqaaqa within the earth's crust qalfoofta dhulka calashaan qaybtiisa kore ama sare inay dhaqdhaqaaqdo ka dhalanayso xagga ayaan ku sameynaa maanta hadduu ilaaha yidhaahdo so thank you very much and have a good one